waxaan dhammaantiin ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan guddoomiyaha guddiga naqshadaynta qaranka ahna wasiirka wasaaradda howlaha guud barnaamijkan uu ka bilaabayo gobolka Togdheer Burco magaalada madaxdiisa waa wax diilo wanaagsan oo lagu meel maro oo lagu dayda leh taas oo hadda ay tahay gobolkii intii uu wasaaradda joogay labaad ee uu fuliyo marka anigu halkan wasiirku sidoo u qeexay wuxuu sheegay talooyin inaanu idinka tala qaadanno iyo inaad waxaad u kordhisaan aanu dhegaysanno oo aanu dib u eegno halkan si kasta oo theory loo sheego xaajo kasta oo la qabanayaa waxay tegaysaa practicalka taa waxaan uga jeedaa aakhirka waxay isugu imanaysaa magaalada Burco in naqshadayn rasmi ah loo sameeyo marka ugu horeysa aqoonta aanu leeyahay iyo khibradda aanu leeyahay naqshadaynta magaalooyinka halka 15 sannadood ku beegan waxaan ogahay magaalada wareegeeda haddii nus kilomitir la qorsheeyo waxay noqonaysaa 20 sannadood lama buuxin karo 20 sannadood magaala ma buuxin karto 500 oo mitir oo magaalada ku wareegsan 20 sannadood Burco ma buuxin karto marka kolley master plan ay ku tala galeen kilomitir uu ka yaraanayo u malayn maayo wareegga magaalada marka 15 sannadood theory-ga practical laga dhigo ma noqonayso ka badanaysa sidaan qabo haddii loo sameeyo naqshadayn magaalada markay ugu yartahay 30 sannadood bay noqonaysaa midda ku xigta dadka sheegaya reer Burco beeraha laga hadlayo way loognahay beer waxa la yiraahdo waxa arada yaala waxa weeye Soomaali meel ay joogtaba in ka yar 3% baa dhul leh 97 kale ee Soomaaliland ama Soomaaliba meel ay degto iyo meel ay u dhaqaaqdo ma hayo waxaan hayaa nin aanu qaraabanahay baa wuxuu haystaa lacag guri u dhisaysa waa Hargeysa wuxuu doonayaa inuu guri dhisto imika intaan ogahay lacagtii uu guriga ku dhisan lahaa wuxuu hayay sanad iyo dheeraad account bay ku jirtaa dhul lama iibsan karo hadduu dhul iibsanayo waa inuu meesha ugu sokaysaa uu tagaa buurta caabudla la yidhaahdo ee Hargeysa iyo u dhaxaysa meesha la yidhaahdo Arabsiyo waa inuu tagaa diinqal oo Hargeysa intuu jiro ogtiin ama aw barxad leh waa inuu tagaa dhinac kasta taas ka noqonaysaa ninkaasi sanad iyo dheeraad lacagtii guriga ku dhisan lahaana waa haystaa wax si Allah la soo yahay hadduu isiraaho dhul iibsana lacagta guriga u dhisaysa guriga waa leeyahay lacagtu waxay noqonaysaa dhul waa dhibaato adduun oo aan hoos loo eegayn oo aad iyo aad ummadda Soomaaliland u haysa wax laga yeeshoodana aan la garanayn waxaa jira beeraha la sheegayo waad ogtihiin oo wax beera la yiraahdo oo jira ma jiraan haddaynu Burco eegno 5% oo beera laga heli maayo dhulkana haddana waxaa la oranayay beertayda yaa meel walba waxaan oran lahaa haddaan ba hadeer laga qaadin oo yani nimanka faraha istaawiya aanay ka qaadin sidii uu sheegay caaqilkii nimanka la yiraahdo reer Xuseen iyo reer Biniin oo aaga deganaa waxaan u malaynayaa qolana xirsi Cismaan baa uu awood sheeganaysa qolana Axmed Faarax kale balaadii ilaahay yiraahdo dhulka ilaahay iska daaya oo ka kaca yaa oran lahaa oo yaa waxaan dambi ahayn oo idinka raacaya ma jirto
waxaad kala kulmisaana ma jirto dhulka lacagta laga helana lagama faa'iido waa war xaqiiqa waad aragteen imika burco dhexdeeda $100,000 weeye kooraheedu waa $100,000 haddaan qofka dhulka iibsanaya aragto mar walba waxbaa kasi oo dhul iibsu doonaya lacagna ma haysto waa waxaan xaqiijiyey oo 4 sanadood oo hawlaha guud aan joogay aan xaqiijiyey wax beera la yidhaahdaa ma jiraan waxaan odhan lahaa oo halkan aan lagu xusin warnimayow waxaan joogay 4 magaalo oo magaalooyin aan ka qorshaynay magaalooyinka waxaa jira marka laga reebo Ceerigaabo magaalo kasta oo aanu qorshaynay waxaanu samaynay dadku ilaa ay dhididaan waxay dhididaan ma dheefsadaan waxa ugu yaray baan u malaynayaa laascaanood $30,000 bay laascaanood bixisay oo master plan bay ku dareen boorame $40,000 bay bixisay gabiilay waad garanaysaan $120,000 bay wasaaradda hawlaha guud u keentay in lagu daro master plan-ka gabiilay waxaan idin odhan lahaa abaari waa jirtaa ayaan lagu marmarsoon abaartana wax waa loo helayaa waxaan idinkula talinayaa horta marka magaalo la qorsheynaya dadku ma yaqaanaan marka ay la qorsheeyo ee burco la qorsheeyo meeshii 10,000 ahayd waxay noqonaysaa 25,000 marka horena qori iyo shiid baa lagu bilaabayaa aakhirkana iyadoo la faraxsan yahay baa la degayaa oo dadku way ogaanayaan xaqiiqda waxaan odhan lahaa maayirka odhan lahaa oo ku adkayn lahaa oo ganacsatada aan ku adkayn lahaa oo u sheegayaa maayirku inuu sanadkii hore ku daro qorshay ahayd oo uu hayo wuxuu ku darsado master plan-ka haddana waxaan odhan lahaa haddaadan waxba u karayn $50,000 ku dar baan ku odhan lahaa dadweynaha burcana waxaan idin odhan lahaa dhulku qaali ha idiin noqdee haddaad ugu yar tihiin gabiilay kama liidataane $100,000 bixiya oo ku dara haddaad tidhaahdo soomaali waxaa u caada ah oo somalilan caada u ah dantii dadka gelaysay war ma arrin baan dawladu fulinaya halkan aynu maanta joogno arrin dawladeed oo lagu fulinayaa ma jiro dadweynaha gobolka togdheer dadweynaha burco yaa arrinay leeyihiin oo dan u ah baa lagu fulinaya suldaanku wuxuu sheegay haddee idinkeeda leeyahay dhulkii magaalada dhexdeeda ahaa dhulkan haddee beedankeeda leeyahay ka baxsan baloodhada la goynayaa intay yihiin waxa weeye horta wasaaraddu naqshadaynta guddiga naqshadaynta qaranka oo uu guddoomiye u yahay cabdilaahi abubakar halka waxay ka sheegeen dhulka in ay noqonayso cabirkiisu 20 macnaheedu maaha magaalada dhexdeeda lagu soo noqonayaado 20 mitir laga dhigayaa dhismo kasta inay impossible tahay waad ogtay waa bannaanka waa guryaha cusub ee la degayo taasina waa dadka waa u dan marka anigu waxaan kula dardaarmayaa reer burco war waxaan hirgelinin ma jiraane waad hirgelin kartaa lacagta bixiya waa talo wanaagsan waayo gobol aan bixin Ceerigaabo mooyaane ma jirto waa wada bixiyeen ninka la yidhi wasiirka maaliyadda Sacab Cali Shire waxaan odhan lahaa waxaa Sacab taladii ku ururtay inuu is yidhaahdo yaan dalka lacagtu ka goyn yaan haddee beedankeeda leeyahay wax isweydaananin yaan wasaaradii lacag beelin wax magaalo laga qabto oo qorshaynta magaalada ka weyni ma jiro oo ka wanaagsan waxaa xitaa joogsanaya dadkii islaynayay iyo dhulkii la isku haystay anigu waxaan ku odhan lahaa Sacab Cali Shire technocrat-nimada horay uga yaro durug oo maanta barnaamijkan meel walba cin ka soo go miisaaniyada xitaa wasaaradda ciyaaraha ka soo go xitaa wasaaradda ciyaaraha lafteeda ka soo go
waxaan ku oran lahaa Sacad Cali Shirow maanta reer Burco inay iyana wax bixiyaan arrinka u sameeyo wasaarad walba isu geegee teknoolojiyada isticmaal bal at least $500,000 si wasaaradda hawlaha waa iga talo meesha loo سعيد نيكل هذا وزير كمالية دنا ووزير هير برعا هدو علمي استعماله ومال والبا وشنكسي كويو وسارت كستا شتا بقولكم برعا وهليا يا عبد الله يا بكر لودي بيو أنا وسلا سيلتهاي يقرأ على هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته